ما جرتون نولوشين wax la yiraahdo uu helay iyo uu la dhashay iyo uu nasiib wanaagsan yahay ninka iyo wallahi daade caawiye nasiib uu lahaa iyo waxan oo dhan wax xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ku salaysan oo ka turjumayma ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay والله أخرجكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي وحي إذن كسو ساري على الله هو يونيكين إذن كون وحبا قرنين تن وحن كل دريميناي إن توسيسا إن قفكو وصور دا شيء يسوون هل إرين قرنين marka waxaad halka ka dhadhansan kartaa inuu qofku dhaxlo oo uu kasbado oo uu dhidido ama uu isagu doorto wadkan nooc shakhsiyad nooceen yeelanaya qof sidee aan noqonaya qof sidee wax u arkaan noqonaya qof sidee u noolaadaan noqonaya qof maxay helaan noqonaya qof maxay u dadaalaan noqonaya ilaahayna uu inoo ballan qaaday ana cinda dhanni abdi bi ilaahay ba xadiis quds kule anigu waxaan ahay wax wadoonkaygu iga malaysto aan in another ay ilaahay wuxuu ku sheegay waxay naf kastaba waxay leedahay oo hadhow ay heli doontaa oo ama ay ka naasnaasin doontaa ay ka ciiloon doontaa ama ay ku farxi doontaa ay ku diirsan doontaa wixii ay kasbatay soo aayad quraan ma ahayn taasina definitely way ahayd oo tii aayadu ahayd kullu nafsin bima kasabat rahina qof kastaba wixii de uu naf kastaba waxay u adeegatay u shaqaysatay u dhididay u rafaaday ay kasbatay bay hadhow dhaxli hadhow heli hadhow wax lagu goomin waxaad keentuun buu ilaahay wax kugu siinay then markaan ku soo noqono mawduuceenan ama dareenkan maanta ka sheekeynano fikirkaaga sideed wax u aragtaa sidaad wax u arkaysa maxaa go'aamiya habdhaqankaaga saad u dhaqmaysa maxaa go'aamiya falcelintiyo had iyo jeer jawaabahaad ka bixiso iyo sida aad ugu waajahdo ee aad u qaabisho duruufaha dunida yaala iyo waayaha iyo dareenada isdhaafaya maalinba maalinta ka dambaysa ay ka gedisan tahay maxaa go'aaminaya waa adaa go'aaminaya you are the boss of your life adigu waxa tahay maamulaha qaabeeyaha maareeyaha adduunka la yiraahdo magacaaga anu waxaan ahay maamulaha booliska madaxweynaha wasiirka ilaaliyaha commanderka iyo qorsheeyaha adduunyaha la yiraahdo maxamed cumar ismaan oo dabcan ay soo kala nolol adduunyo kala badan the same adiguna sidoo kale waxaad maamule ka tahay waxaad qaabeeye ka tahay waxaad qorsheeye u tahay waxaad madaxweyne u tahay waxaad heegan ugu jirtaa aad boolis u tahay waxaad ilaaliye u tahay nolosha iyo adduunka la yiraahdo hebel oo hebelka adiga marka كانوا كنا قلنا موضوع عن اللي هي attitude كأما هبدقن كقف يسدو قف دقميو يسدو أفكريو يسدو وحوجة شواب علنيو وحلا هذا وأساسك يدق حوجه الرية أي كبل أبنتو نلاش تسقط كي يقولها يبدأوا قف جاري دونه واحد يقف ونصيب كيس وصيو إنه هلا positive attitude أما هبدقن يا فكر ينولل قابيسن أو ونكسن haddii laakiin nasiib daro uu qofku heli waayo uu awoodu heli waayo ama ay ka dhex baxdo ka ilduufo oo uu ka gaajoodo agoon ka noqdo habdaqanka fiican hab fikirka fiican falcelinta togan inuu qofku naftiisa fahmo nafaha dadka kalena fahmo haday dareenkaas ka dhex baxaan luqadaha kale waxa lagu dhahaa attitude haday negative noqdaan ama tuxun oo khaldan ay noqoto qofkaas wuxuu ka qaday dhadhanka nolosha ما قولي سندونه وحكون ولان دونا نولال دقيقة وحكون ولان دونا نولال عديدية وحكون ولان دونا إلهي بابلده ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وحكم ذا إن إلهي ذكري جيسة أتكتشستو إن ترين ويدا برارها يبرخدها إلهي كسية أو تكلم مشغوصو ترينتا وحيابها كاخلدن وحيابها دويدي قدر كقول عي نعم دباتوين كسوفو ترينا ترسطو أيا كم إذا كمشغولي ده يكتشست كذا ذكري إلهي وكمر خاتك عي حسك كم ومن الشيء كمر خاتك يبرخد شاقدة يكفر حدة يبهبهنتا يبونبوننتا يبخامنتا وإلهي نمعوين كإلهي كسية وقر واقصني سيساقا هذا كجيستو أو كجيستو ترنت دباتوينك مسيبوينك إيه وحيابها كاخل دان نولشك صومرة واحد كجيست ذكر إلهي واحد اللودي ولا إن شكرتم لأزيدنكم هاد وحان النسيني بالهي دان معدا كسية هذا يقوم حد نقدان وان إني كردين يا بالهي تيباد اللودي واحد كجا مشغوش إن معين كإلهي كسية عافماتك مسكحة قرشة أركتة مقلك سرجوجا موقن قروح بدن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وادي اللودي وحيورن وحسرون الله دونك نحما وحسرون what the hell life is this وحسرون
dhulkan aan ku noolahay necaba Afrika liidasho badana Afrika musuq maasuq badana it's all about that waa dadka negative attitude ama hab dhaqanka iyo hab fikirka khaldan ee negative ku jiro saasoo dhaqmaan haddaba hab fikirka qofka hadduu wanaagsanaado muxuu dhaxli doonaa muxuu heli doonaa haddii qofka sida uu fikirayo sida uu dhaqmayo iyo sida uu wax uga fal celinayo hab dhaqan isku nidhaahna si guude maxaa xal muxuu hadhow natiijo ka helaya hadduu hab dhaqankiisa iyo sida wax u arkayo sida wax uga fal celinaya hadday noqdaan kuwa positive ama togan oo wanaagsan oo xagga fiican ka sheekaynaya iijaabi hadday saa noqdaan muxuu qofku dhaxli doonaa haddii ay khaldamaan hab fikirada noocay iyo sidoo qofku u dhaqmayo sidoo uu fikiraya haddii khaldantana sidoo muxuu qofku dhaxlaya maxaa se go'aaminaya qofku inuu hab dhaqankiisa wanaagsanaado iyo inuu qofku hab dhaqankiisa xumaado horta aynu iska dhex saarno hal shay waxay nagu badan haddaynu Soomaalinahay aaminsanaanta iyo maxaydanay iska sheegashada iyo fahamka iyo iska aaminida khuraafaad aan xaqiiq diinteena islaamka ku lahayn dhaqanka suuban iyo dadnimada sugan iyo damiirka xalan iyo dareenka saafigaana aan inaba meel ka soo galin nin guulaysto u dhidadayo u rafaadayo nolol ka dhigta de noloshu raadinay ku noolaadana aan sinaba u qabanay waxa kamida waxyaabo la yaabis waxa kamida waxaanu sameeynaa maanta haddaan wax wanaagsan helo waxaan oranayaa alxamdulillaah وهذا أدون صالح ونكسنه هو إلهي وجانسن دي هذه كله وحنا رنا يا عند أيها خلدن تو ده كوي إلهي لوبي أنا ومن أعرض عن ذكري كوي إلهي كوي كتشيستي لوبي ده إسكت يلسدي حسك إلهي هذان أدي إلهي نجمد دي نجمد ونقدنا ده وحنا نقولنا يا يس ونشقيست ونبدأ وحاسد دي جبر وحنشقيست وين أنا هلا wuxuu isasiinaya awoodda iyo kartida uu ku kasbaday waxan oo dhanba isaga isasiinaya and that ma runtaasina waxa runa aad uma tiid damad maamulaha iyo sameeyaha iyo keenaha qadarka iyo waxaad helaysa ma tiid ilaahay baa qadarka qoray رفعت القلم وجفت الصحف qalinkii lagugu qoray waxaad heli lahayd uu qalalay kor baa loo qaaday oo la rafciyay qalinkii waraaqihii wax lagugu qoray qadarka lagu qorayna way qalaleen wassalaamu calaykum qadarku uu sameeysan yahay laakiin adu ma awood baad u leedahay inaad bedesho your destiny ama qadarkaaga maya waxaad sabab u tahay waxaad tahay sababaha qadarkiisa haddaad guulaysato alxamdulillaah ilaahay baa kuu qoray waana u dadaasho sababteedii baad haddaad guul daraysato yes adigu baa sabab u ahaa marka laba shay aan kala ilaalino markaynu wax wanaagsan helnana inaynu nafteena mahadino nidhaahno waxa soo dadaalano mari waxa soo rafaadano mari haddaan guulaysaneyn maxaan ka noolaanaya noloshaan waxay bartay inaan guulaysto wax kastoon samaysanayna anaa qaban kara ha waa run laakiin hay loobin qudradda weyn iyo gacanta weyn ee adduunyada ka dambaysay haysaay waa gacanta ilaahay baa awood u leh wax kasta adna waxa tahay adoonkii ilaahay ku yidhi hadaad shaqaysato waxaad shaqaysato waad helaysaa so ilaahay hay loobin markaad badhaadhe joogto xasuuso ilaahay wuxuu ku xasuusan doonaa marka masiiba ay ku haysatay kadeedantahay